qofka markuu ku jecel yahayna oo dan iyo waxaas ka leeyahayna waxyaabaha qaar sida hadda inaad xaaskeyga oo kale iyo daawade codkaad soo dhageysatay waa Shaadiye Sharaf oo sheegtay in saygeeda Cabdifataax Yare ay kala tageen ay haddana isku haystaan qadarkeeyo Shaadiye Sharaf oo la sheegay in barta social media muuqaal ayadoo qaaban laga keenay ee codad sir ah laga keenay ayaan kula wadaagi doonaa fadlan nagu soo biiro channelka subscribe noo dhig baleelkan u fur muuqaalka like talaaw fikrad ka qabtin qaybta commentiga noo la wadaag soo dhawow daawade xogad sir ah oo baraha bulshada ee barta social media dhacdooyinka ugu dambeeyay ayaan kula wadaagi doonaa Shaadiye Sharaf oo barta social media ka cadeysay ama cod sir ah oo WhatsApp-kaasi ay isdhaafsadeen ayadii qadarkeeyo Shaadiye oo hadda la sheegay in ay dalkaasi Nairobi ay joogto qadarkeeyo dartiisana ay u tagtay maadaama saygeeda ay kala tageen haddana ay qadarkeeyo jacayl ay u hayso muuqaal sheegay Shaadiye in ay qaaban tahay oo la hayo ee dad badan hadda ay leeyihiin qadarkeeyo iyo Shaadiye way jecelyihiin lamaane isku nuurayna weeyihiin muuqaal ayadoo qaaban iyo barta social media codad laga keenay oo hadda la sheegay inuu baraha bulshada hadda codkeeda uu qabsaday maadaama Shaadiye ay sheegayso in qadarkeeyo ayada oo lamaane oo eeba sheegayso in ay saygeeda ayada ay kala tageen codkaasina ay ku cadeynayso codkeeda oo baraha bulshada saacadooyinka ugu dambeeyay qabsaday codkii oo la aamin waay laakiin muuqaal ay sheegtay markii codka ay duubaysay ama codka ay u soo duubaysay ku cadeysay in ay mar dhow u imaanayso ee haddaba ka soo degtay dalkaasi Nairobi marka codkii oo la ogaa oo haddana muuqaal oo baraha bulshada oo barta social media imaaday ayaa cadeen noqday maadaama Shaadiye Sharaf oo la arkay qadarkeeyo dhabtiisa in ay ku fadhiso muuqaalkaasi iyo codkii bal la rumaystay in ay Shaadiye furiinkii wixii ay sheegaysay in ay saygeeda iyo ayada ay kala tageen ay baroon noqotay arintaasina ay dhabba noqotay arin saxna ay noqotay arintaasi oo ay loo maleynaa in ay afka dhayso ama been ay tahay arintii oo idil ay soo ifbaxday haddana Shaadiye iyo qadarkeeyo in uu xiriir iyo wadaagba ay ka dhaxay Shaadiyena ay u haaso qadarkeeyo jacayl muuqaal oo qaaban oo la sheegay in oo sir ay isdhaafsadeen dhankaasi WhatsApp-ka muuqaaladaas oo hadda baraha bulshada dadka qaarna ay sheegayaan in muuqaal qaaban laga dad badanna ay sheegayaan in muuqaaladaas la soo bandhigin oo baraha bulshada hadda la soo gelin oo gabadha loo ceeb asturayo ceeb asturaadna ay ku jirto meesha haddana ay muuqaaladii hadda ugu dambeeyay baraha bulshada halhaynta ugu dambeysay ay noqotay in ay Cabdifataax iyo Shaadiye ay kala tagaan lamaanii isku nuurayna hadda ay ka soo dhaxbeen Shaadiye ay dooratay qadarkeeyona hadda ay ku faraxsan tahay jaceylkeedan uu yahay ayadan ee farxad ee bala qaadanayso maadaama naf walba nafta ay rabto maadaama meesheeda ay aadayso haddana ay Shaadiye hadda dhankeeda ay qadarkeeyo ay u borsooyin qaadatay haddana ayba isla joogaan muuqaalka sidaad ka arkirtay muuqaalka cadeynta noqdayna baraha bulshada la keenay labadooda oo baashaalay Shaadiye oo qadarkeeyo dhabtiisa ay ku fadhiso muuqaalkaasina ay dad badan cadeyn ay u noqotay labadoodan in uu xiriir jacayl ka dhaxeeyo muuqaaladooda ayaan kula wadaagi doonaa codad sir ah soo dhawow daawada wixii fikrad ka qabtay qaybta commentiga noo la wadaag soo dhawow daawada qofka markuu ku jecel yahayna oo dan iyo waxaas ka leeyahayna waxyaabaha qaar sida hadda inaad xaaskeyga oo kale iyo tusaale ahaan unu soo qaato ma fahmaysaa okay aniga